dadka rasmiga isu jecel jacaylkooda taariikhda laga qori karaa ma aha wax naxli leh ma aha wax nac leh ma aha wax cay leh ma aha wax uurxumo leh ma aha ma sahlana inuu qof kaaga sheekeeyo arrin sir wahayd muddo badan taasoo uu ka qarin jiray dad badan oo isaga la jooga misna waqti badan la qaata sida kuwa guriga ku wada nool yihiin iyo saaxiibadiisa gaarka ah markaad maqasho sheeko dhab ah oo qof ku saabsan in badan waxaad ka jeclaysanaysaa mid la matalay ama khiyaali ah dadka fanka Soomaalida lagu yaqaano waxay in badan ka hadleen arrimaha jacaylka iyo xiriirada dhex maray lamaanayaal ishantay iyo kuwa iswaayay iyadoo inta badan la guuldarro lagu tilmaamo markuu qofku waayo qof uu doonayay labada iswaaya dhibaato way leeyihiin laakiin way isu samraan oo sharaf bay isu leeyihiin ya qasab maaha jacaylku ya wixii calafku siiyo iyo wixii oo calafku kaa joojiyo labadaba wuu yeeshaa jacaylku marka sidii dee cilmi boodhari oo kale ama Ismaaciil Axmed oo kale qofkii gabadha ay jeclaan ay iswaayaan aniga waabaan isku soo noqono si bay isu kaya keenay dee waa tan taariikhda bay kuwa siileen fog oo kuwa iswaayaba ugu taariikh badan kani waa abwaan Axmed Salebaan Biddi waana abwaan caan ka ah gayiga Soomaalidu degto bilowgii 1943 maalin ciideed rooban ayuu ku dhashay beer ku taala koonfurta magaalada Hargeysa waana sababta yaraantiisii loogu baxshay Axmed Weli ama Axmed Roble labadaba aabihi waa Salebaan Maxamed Xirsi oo loo yaqaan Biddi oo magaceedu yahay Xoogane malcamad quraantiina waxa uu ka galay magaalada Hargeysa waxaanu la dhashay 12 qof oo ka mid ahaa abwaan Ali Salebaan Biddi waxaana hadda nool 3 ka mid ah walaalihii Axmed oo taariikh dheer ku leh fanka isaga oo ah abwaanka ilaa hadda riwaayadaha ugu badan leh kuwaasi oo kor u dhaafay 45 riwaayadood ayaa waxa taariikhdiisa ku jirta inuu u jeclaaday gabadh ay markaasi isbarteen isagoo Axmedna ahaa nin wareega oo kalba deegaano kala duwan oo Soomaaliya taga isaga oo ku jiray kooxihii riwaayadaha qaadi jiray ee kalba deegaan ku dhigi jiray balse Axmed gabadhaasi waxa uu ku hibeeyay hees kamid ah heeso uu alifay kadib markii laga guursaday إذا جيل عليليو وبحضور كقريين وكون اللابا عيني بجسر هو مالك قاديو قلت أصلاً قبل أن تعلابان أسميه أنا الجد نوانسي marka de hees jacayl oo jacayl run ah oo sharaf la isasiinaya ayay heestu ahayd sidaasaan heesta u sameeyey oo dawad garanaysaa inay tahay waxsa aanan garanayn iguna caashiqii halka aad gaarsiin بورتان كو ايغبا غبدي كلك علبان بورتان كو ايغبا قلبي غلسا وحسي آن قراني يقولوا بيع عاشقيه سعاد قاسي مثلا waxa weeyaan marka aniga rajada uu sugaya sharafna uu sameeyay qofkiina amaantiisii uu sheegay laakiin dadka qaar baa mooda marka inta geed lagu sheego ama gubad iyo doog lagu sheego ama faras lagu sheego iyo gardoor iyo moodaan in qofka laftiisa la sheegayo ma aha laakiin sida meeshaas qiimaha u leedahay ayaad qiimo u leedahay way waayo kelmadda la yiraahdo sida tahay war haday timaado waa tusaale sida lagu sheego sheekooyinka laga soo wariyay bulshooyinka kala duwan qofku waxa uu ka xumaan karaa marka uu waayo qof uu jecel yahay balse Axmed oo si guud mar ah arintaasi uga hadlay waqtigiisii waxa uu arkayay arin iska dhici karta waxaanu waliba niyadiisa ku dhisi jiray inuu qofka la jecel yahay wax naxli ah ama xumaan ah midna loo qaadi karin hadii la kala guursadana dee wala guursaday guriyo kale la geystay guulo Allah waa nabi gargaarayo kale ya naxli ma la jacaylku waa nabad soo noqo
kuma dhicina soo noqo waa iska caadi dee waxa weeyaan jacaylkii oo aad sheegayso inaanad naxli u qabin dee jacayl iyo naxli isma galaan inkastoo dadka qaar sheegaan in abwaan axmed salebaan bidde markii amran laga guursaday uu ballan qaaday inaanu haweenay kala guursan doonin ee uu ka taami doonay inuu amran mar uun helo ayaa abwaanku qaabka isku heleen waxa uu ku tilmaamay mid calaf uu ka shaqeeyey way jirtaa reerkooda weydiistay markaa labaad oo waanu ku kulannay halkaasoo way jirtay waanu isku aroosanay laakiin nasiib baana kulmiyey wax may ahayn aniguna aan ballan ku qaaday inantuna ballan ku qaaday may ahayn wax calaf ilaahay isu kaayo keeno soo celiyey ayuunbaa ahayd sidaan kugu sheegay horeba axmed salebaan bidde waxa uu sheegay in jacaylkiisu yahay mid xusuus ku leh marka la eego sida ay isku waafaqsan yihiin heese uu wakhtigaasi ka sameeyey darunta la isu sheego aniga jacaylku ugu dhacay waanu ugu badnaa sidiinan isugu niil maay gabin naftayduye waa nabad warkaygani iyo nooli kulantee hadalnaagina seexe nafaaqiyo waxsiiniyo dee taasina jacayl bay hayd aan ka heesayey iminkana waabaanu wada joognaa gabadhii aan jeclaa beri dambaa nasiibkiisu kaa keenay waa laysu soo noqonay wixii nool adduunyadaaye dhulka oo nagu baxay robkuna ku nuuxsadaaye nimcadii adduunka calafku ha raagee ma guuro meesha ilaahay ku dara marka gabadha markii aanu aniga istaagnay calaf baanu isku weynayey isasaag kale may ahayn markii dambana kulan kale may ahayn calaf ilaahunba isu kahay keenay ilaahayalku jacayl ka oogay isagaa og dee khayraadka ku jira iyo dhibaato wuxuu leeyahayba halka roob uu ku shubana geedaha ka soo baxaaya isagaa yaqaano de ilaahay marka amarada ilaahay yunba waxaanu ku socdeeno waa dee nin nasiibku waayo nin nasiibku hela ayay noqotaa axmed salebaan bidde oo laga soo bilaabo 1962 fanka ku jira waxa uu sheegay in magaciisu ka caansan yahay muuqiisa haddaba qofka aan axmed arag waa nin noocee ah waxa weeyaan ninaan qurux badnayn oo aan dheerayn oo aan qaxsayn oo aan maal badnayn oo aan sabool ahayn nafarkiisa hele iska meel dhexaada ashaawo maqada ah dhaqankiisa iyo hidihiisa yaqaana kuna samir badan dalkiisa iyo dowladdiisa iyo ummadda islaamkaba ama caalamkaba dabadna u bixi kara gudana ka shaqayn kara taasina ay tahay fankiisa iyo dhaqanka iyo hidaha uu dee wato ayuunbaa dee maaragtay